ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalaha lagu burburiyay goobaha ay ku dhumaalaysanayeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalkan ayaa waxa si gaar ah u fuliyay ciidamada ka tirsan guutada 7aad ee qaybta 12 Abriil ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamadan ayaa waxa si gaar ah howlgalkan kaga fuliyeen deegaano hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. howlgalkan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay si gaar ah ugu bartilmaameedsadeen sidii ay uga soo saari lahaayeen minooyin dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyin inta badan ay adeegsadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dadka shacabka. waxaana ciidamadu intii howlgalkaasi ku guulday jireen ay ku guuleysteen in ay qarxiyaan isla markaana ay halkaasi ka soo saaraan minooyinkii ay ku aaseen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkani waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgaladan ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana lagu soo saarayo minooyinka kala duwan ee Al-Shabaab ay ku aasaan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanada sida gaarka howlgalkani looga fuliyay. iyagoona intaasi ku daray in ay u qorsheysan tahay in deegaano kale ay gaaraan halkaas oo ay sheegeen in Al-Shabaab ay ku sugan yihiin isla markaana ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanadaasi hoostaga degmada Afgooye. ma ahan markii ugu horeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalo noocan oo kale ah ay ka fuliyaan gobolka Shabeellada Hoose waxaana sidaan oo kale howlgalo kala duwan oo ciidamadu ay qaadeen ay ku soo saareen minooyin ay ku aaseen dagaalamayaasha Al-Shabaab wadooyinka ay adeegsadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale dadka shacabka